wadatashiga golaha midnimada Soomaaliyeed ee loo maro jidadka jannada Allah nagu toosi amiin wadatashiga golaha midnimada horumarka ee ummadda Soomaaliyeed shantan la sheego ee shanta ahayn weligeed aan shan ahayn ee halka ahayd wadatashiga golaha midnimada horumarka jacaylka walaalnimo hiil hawiye ayaa inoo socdan Cabdirasaaq soo dhawow Cabdirasaaq laba Cabdirasaaq soo dhawaada waqtigan aan arkayso maxayna soo geliyay jacayl Soomaaliyeed iyo warka xun ee ka soo baxay Muqdisho bahweyntii Soomaaliyeed aynu jeclayn dar ilaahay baanu jeclahay xasan sheekh qoslaaye ilaahay baa runta jecel qosolkiisa waan jeclahay waa madaxweynaha aan qosolkiisa ugu jeclahay waa madaxweyne soo mara Soomaali ninkan qosolkiisa ugu jeclahay ayaan cadaab uga baqayaa halkaas aan ku tufaynaa taxriir barakaysan saddex group baynu la hadlaynaa si guudna waan u hadlaynaa saddex group waxa kamid ah ciidamada Soomaaliyeed barakaysan Allah barakeeyo military iyo police iyo inta u dhaxaysa ciidamada Soomaaliyeed ayaan fariin halkan uga dirayaa degdega oo emergency ah anigoo ah khaaduunka noolaha miskiinkii alle dar ilaahay baan idin jeclahay Soomaaliyeed okay waxa kale oo fariin u dirayaa culimada Soomaaliyeed oo hakranaysa iyadoo bil Ramadaan lagu jiro waxa ka soo yeeray xamar reerkii laandeeraha ahaa waan idin salaamay khiyaaray soo dhaweeya reerkii laandeeraha ahaa ee hawiye maxaa ka dhigay laangaab konton baa shirtay markaasaa waxaa lagu qoray board weyn oo kay wadatashiga beelweyn hawiye magacu macaana oo haddana sida loo isticmaali kharaada waa albaabkii naarta iyo burburinta ummadda Soomaaliyeed marka hawiyihii intaan arkay la ekaa sababtu uga maqan yahay waa ka soo horjeedaa waa diidan yahay laakiin intaas baa hogaamin inta xumba in hogaamisa war dadka aqliinta aqliga laho war bulshooy inta xun maxay inoo hogaamisa fariintaydu waxay ku aadan tahay saddexa group iyo odayaal dhaqameedka odawaa nin 20 jir mise 22 mise 30 ba aan gaarin oo generaal ah horta ma jiray ilaahay baa mahadaale odawaayow adiga iyo inta kula darajada iyo inta aan darajada ahayn dablaha ah baasha kugu taxana quruxda badan waxa ku siisay magaca Soomaaliyeed anaad ii wadaa nin kasta oo Soomaali u wadaa cadawga Soomaaliyeed ba u wadaa cadawga gudaha iyo cadawga banaanka waxa daran cadawga gudaha cadawga Soomaaliyeed ee banaanka waxa ka daran cadawga gudaha waxa ka sii daran cadawga xigtada waxa ka sii xun cadawga hawiye ee magaca iyo sharafta ka muuqata ku qurila ee sunaysay Sadiq John ee kuwa badan sunaynaysa odawa general salaam sare malaa'ikta ku salaamto waa maalintii laydin ay lahaa waa maalintii quruxdaasi sii socon lahayd ama maalintii quruxdaasi baabi'i lahayd Sadiq John maanta ninka naxsan mooyaane inta dhabaha shaydaanka ku socota waa gaar ninka naxsan mooyaane nin u faraxsan oo Soomaali ma jiro waa lagu ducaynayaa horta duca kaamil ah yaan adiga iyo ciidamadaba aan idin soo diraya Soomaali idin soo diraysa nooluhu idin soo diraya bi aad soo diraysa horta salaanta iyo ducada iga gudon tali Allah idin suro waxa ka soo yeeray tolkeen bahwiye odayaashii madaxweynayaashii ina soo maamulay ra'iisul wasaarihii saddexda sano iyo barkii soo maamulay okay ninkii wasiirka ahaa ee saxay badda iyo inta la socota maynu daawanaa mise talaabaan ka qabanaa militariga sharafta laho militariga darajada laho darajada waa midaan muuqata iyo midda rabbaaniga intay goor tahay talaabo digniin warning siya nimankaas isceebeeyay
أين عبين يا عدو وشقينية الله يذكر قرب go ahead waxaan leeyahay culimada Soomaaliyeed warmeedaan cadaab kan lagu cararayo meedaan arkin nimanka madaxweynaha noqday ee soo maamulay ee ku dhawaaqay ee ka xishooreen qabiil ma kuwaasaan dooranaa ma kuwaasaa tartan gelaya ma kuwaasaa farmaajo tartan la gelaya maya way og yihiin way ku subkadeen sharaf la'aanta way cadaysteen maal bay qaateen okay shacabkeena gubine culimada Soomaaliyeed ay bil Ramadaan ku jiraa ka qabta nimankan dhabahan khaldan odayaal dhaqameedka intii shaashowday waa gaar inta aan shaashoobinay odayaal dhaqameedka u gurmada dalkiina hawiyow waxaad ku noqonaysaan god xun oo Soomaali ay aydo 100 sano 200 oo sano dambe ninka madaxweyne soo maray ee wasiir soo maray ee soo maray prime minister ee maanta afar qol la galay ee hawiye ku faanaya qori ku faanaya ninkaasi inuu hor fariistaa xaraan ah inaan telefishin ka aragnaa xaraan inuu maamulo mooyaan inuu maamulo iska dhaaf odayaal dhaqameedka gurmada oo hawiye u gurmada oo inta xalaasha hawiye ee badanay gurmada nimankan waa mucaarad waa gaf ma mucaarad waa dumiyaal cadow cadaystay umada laga qabto okay kelmadda hawiye naareed hore u baxday anu ma ogi taa kama war hayo okay laba xisbi aynu kala baxaynaa okay laba xisbi ayay hawiye u kala baxayaan hawiye naareed iyo hawiye jannaad ma doonayna kuwa hawiye naareedka inay noqdaan war aan ka qabanno hanu ducayno ilaahu soo hadee xasan sheekh iyo xirtiisa iyo shariif ilaahu prime minister ki intaas oo sano aan ku faraxsanaa ee codkiisa aan jeclaa talaabadiisa soo hadee okay rag badan baa ilaahay fashilay oo Soomaali kursi ka qabanayn hawiyow in badan baan idila talinayay Soomaali filistiin nimankan way cadoobeen nimankan Soomaali madax u noqon maayaan nimankan inay hor fariistaan Soomaali raali kama aha hawiyaha inta aqliga raali kama aha cadow baa ku shaqaysan han iska qabanno inagoo wada soconno culimadeena odayaasheena militarigeena han iska qabanno saddexdan gruubo codkiinu aad buu gaabinayaa in shir noocaasa laga qabta xamar oo ragga madaxda soo aha ay qabtaan dayn baa ku maqan xoolay qaateen xoolahaasa u cad indha male dhiga male war iska qabanno war han iska qabanno allahumma ballaqtu sheekh xasanow walaalow wax fiican baad qabatay waad isceebaysay oday Soomaaliyeed oo wadanka ku degan oo la ixtiraamo noqo walaalow kan noqo waa calaamad xun waa sumad xun ninkii madaxweynaha ay ahaa taasoo sano inuu maanta yidhaaho qori afkii baan farmaajo kaga qaadaya waxaad ka quusatay miyaa kurs waxaad ka quusatay inaan tartanka la gelaynin war adiga yaaba ku raba inaad ma keentid wiil aad dhashay walaalka mid hawiye abgaalkeen murusadow hadday deeq weyday Saynab idinkaad meesha madax ka ahayd hadday marwadii wadanka deeq weyday murusadow keensada nin farmaajo cod kaga qaada okay cod kaga qaada suhuur soo dhaweey rabti khaliid maanta ku arkay okay habar gidinay maxaa ka maqan shay ra'iisul wasaarihi waa adiga habar gidinay ilaahu habar gidino toosi ilaahu habar gidino ognahay Soomaali jeceshahay ilaahu xaaraanta ay jeceshahay ilaahayow ka badbaad ilaahu tawfiiq la'aanta habar gidir ilaahu ka saar habar gidinay waxaan la yaabay calaamad xun oo Soomaali xitaa aan lahayn badleed war idinka kiina madaxda noqdo xitaa ma saacidaan ninka u horeeya action qaad Soomaali inta badan qabiilka kooda madaxda noqdo sacabka u tuurtaa xogaa hadda aniga iyo suhuur Mustafa waanu yirtuna sacabka ma ina suhuur saahayn
وقبيلة هاسو معها قبيل كنت معها كلية أون حاجة أباها حاجة هو يدرس معها أوكي هدف مصطفى ده واحد في عنا وحمد له وحنا ما عرفتي ما فسهاديو أحمارو أن نعبنا هاي بوسطن كنا يجري أنت كلية كويس أنت أنا بيهرا كم معارضة هاي لما كي تقول كأي لانديرها أو على كم معارضة يا كسور جدا لما كي ما رضي هاي تقول كأي لانديرها رعب لي مرة بتاع المصطفين أنا معارضة علشان معارض كقوة وكبح موضوعي ري عبد الله المال ريال علول با معارض كقوة مصطفى هنرجعني ما معارض كقوة هنأرك والله أنا راعية عبد النور سنو ري عبد الله المال ريال علول با معارض كقوة مصطفى إيه قدرة كرسي إن إلي ما إسكالها بقرتو يويا مرة بتاعنا نراعو رجعني مو إنكم معارض كو أناركو وقتين وقاتان وقراضة وولال كيني أوكي مركزان كراعية موضوع وحانو قبحي ري عبد الله نجا قبته نكن هوية لوجوينية نكن لوجو أي نجا قبته أوكي الليست برصاص وخلدن أصلا وحن أحمد مدوبي يدني أيه تولكي هي مجرتين يجوا إنه قلدين هيدني أيه حتى المحوجا كعموسة يعني معارضين بل أحمد مدوبي فيني كوما دام باصع كوتمية أنت قال ليها ستنملي كريست ورث كده قفوا وده نجاس يا ليلية حبر جديرين طلقي على حكومة على حمر جوجا رئيس الوزراء هو أديكا ما أنتي نكن مرسلة وشقيني صادق جون دا عدبوها maxaa ninkan wasal wasaaraha habar gidir ee saacad maalintuu noqday habar gidir inay qori afkii ku qabsato ay u fikirtay waa guuldaro waa calaamad xun oo Soomaalidu aan lahayn war meedan arag habar gidir inay calaamad xun ka muuqato war wasal wasaaraha mid badbaadina habar gidir badbaadi maysi ee Soomaaliyeey wasal wasaaraha barakaysan ee habar gidir ee saacad soo saacad ma horta أوكي waxay u diidan yihiin way qarinayaan daarood buu ka soo jeedaa war ma cadaysataa way aragtaa inay hawiye idin rabin saacado way aragtaa inay habargi idin rabin waanu aragnaa heerka waa la biliqaystay annagoo dhan baa isbiliqaysanay nimankan kumadaha beri hore la biliqaystay iyaga isbiliqaystay waan ognahay inuu saacadnina absama yahay waan ognahay baadicad waa baalcad warwaanu ogna ee Soomaalnimada nagu filan saacadow kuma rabaan hawiye saacadow kuma rabaan habar gidir calaamad fool xun oo doqonnimo ah oo Soomaali lahayn baa habar gidir ka muuqata okay daarood laguma hajabi karo habar gidir ee saadiq doorow uguma hanjabi karta xamar daarood hore u tashaday eryaydii way dhaaftay masaakiintoodii iyo ciyaalkoodii waxay joogaan jigjiga iyo boosaaso iyo laas caanood iyo maxaan ku dhahaa markaad bixiseen dhulbahanta baxsaday intuu noqon lahaa idoor dhint ha noqdo xaggaasay joogaan Jubbaland meeshan Soomaali adaanu ku sharafaynaa Soomaalimaan sharafaynaa daarood military baa ka jooga hub haysta hawiye badankiisana nimcadaas isaga iska haysta waxay la xanaaqsan yihiin Deni iyo Axmed Madoobe nimankii hawiye ahaa uu naas nuujinayaa xaqna u leeyihiin laakiin xaq uma leh nimankaas Xasan Sheekh iyo xertiisa xaq uma leh hawiyaha xalaasha xaq u leh waxaan u soo jeedinayaa culimada Soomaaliyeed iyo militariga Soomaaliyeed iyo odayaal dhaqameedka oo shacabkiisa adeegsan nimankan hala jabeeyo nimankan aqligu ka suuray xaqu ka suuray waa hawiye naareedkii la sheegayay waraan ka qabanno waraan ka gaadhno culimadu aad bay u hakranayaan magacan malaha waa mar hore ilaahay aqbalayo hawiye daarood eryaydii cadaab buu ku wada gelayaa war maalintii daarood eryaay ma aha waa maalintii daarood deystay warka daaroodkaydii ogol ee fariidkee danta idiin deystay war ilaah baa idin soo diray shariifkan war iminka ina ilay fiiri ina ilay bil aadamku wuxuu jecel yahay karbaashka ina ilay
dadka leey kuwa leynaya yaa ole isaga noo dhaabay mustafa wax ma dilo wax ma shukaansado wax ma dabada ma ruuxo ilaahay axmaaru ku salay laakiin haddana waxay kulligood doonayaan inay ilaahay oo kale hawiya waxa doonaysaan nin idin karbaasha inay ilaahay oo kale doonaysaan baad ilaahay ka baraysaa inuu keeno insha Allah shariifkani idima dilayo haynu badbaadino dawladdeena haddaad diidaan war farmaajo ka jooga war ma ogolaanayaan war hawiye inuu guulaysto nin daarooda ma ogolo inta xun inta fiicanna way aamusan tahay way aamusan yihiin okay inta fiicanay hadal konton hawiye la dheeraha daaroodu ka badan yahay konton baa sideetan haday bataan ayuu ahaa shirka marka malaga baa hawiye haddaba inta ka maqan hawiyaha malaayiinka ahayd maxay u aamusan tahay afar shan baan arkaa hadla marka haddaad aamustaan hawiyo haddaad aamustaan nimankii madaxweynayaasha ahaa ku dhawaaqay beesha hawiyaa farmaajo xoog kaga saaraysa berri marka nin hawiya yimaado daaroodkuna ma iloomayaan saas bay odhanayaan waxaan la doonayaa caasimadda in laga raro war hawiye dhaka weyne wake up hawiyow عيدي لين عايا صون نقول وحبان إرينا وحبان قلا وحبان كسرة حمر ولا وذليه يعني دولة دماء الأولية قبل هالو ما يستو فرماجة كرسي وحكو فرديا صومالي مكو فرديا حقي دارود مكو فرديا كما صوتوري كرتان حضرت صوتورتان من هوية ما دورين مركب حويا ولي ينا الدولة نقولين مركب سامة كل أورنا nimanka iyaga oo odayaashii oo intaana maamulayay maanta beesha hawiye qori afkiibay kaga saarayaan leh haddaad daawanaysaan haddaba qori afkii baa lagaaga soo saarayaa boosaaso lagaa soo saarayaa kismaayona waxaa leenahay annaga leh unukaale soomaaliyaan dee waay unuka xamar leh annaguna kismaayo waxaan leenahay unukaale boosaaso unukaale okay dir unukaale xagee tagi jigjiga unukaale okay warwa haddaad badan tahay oo laandheero tahay waa lagaa dhul badan yahay waa lagaa Soomaali jecel yahay miya ma oran adaa Soomaali jecel laakiin markay timaado xukun waa lagaa jecel yahay khiyaar wada meesha ka muuqata kulli waa salaamay waa bishii Ramadaan ee barakaysneed ilmaada reyaal hawiye naareed iyo hawiye jannaad ayay u kala baxeen waxaan leenahay hawiye naareed kaanu ducayno ilaahu soo hadee han ka qabanno haynu cod kaga qabanno haynu ficil kaga qabanno haynu si kasta isticmaalno intaasaan u soo galay sheekh xasanow sheekh shariifow xeebta Soomaaliya markaas saxiixaysa kama warhaynin maalin kasta oo socdo oo minida sharaftaadu hoos bay u sii degaysaa sheekh xasanow doorasho lagu doorto iska dhaafe program qaatay inaad ku noolaataa khatar ku jirto Soomaaliya khayrow gabadha murusade ayaana maamulaysa sheekh Cabdullaahi soo dhawow samawada soo dhawow dhamaantii soo dhawaada Sakariya oo adanka kuliin ilmaada rayaal han ka qabanno hawiye naartan hawiye naareed yaa bixiyay talow madaalad ba bixiyay mise raxawi ba bixisay magaca dib ha loo noqdo ha laga qabto nimanka tolkeena ee guuldarrada inoo soo hoynaya kontanka ha la jeebeeyo okay oo ninka ra'iisul wasaaraha difaacan oo hadduu hawiye taa garan waayo adeero farmaajo intay hal qof intuu dhiman lahaa okay ra'iisul wasaaraha powerka ku wareeji powerka Ethiopia yaa xukuma ra'iisul wasaaraha Soomaaliya powerka madaxweynuhu maxuu xukuma powerka ku wareeji ninkan de hada isaga laftiisa daaro ahaan u diidayaan xamashada lagu xamanayo sacad waa daaro ayay u diidayaan sayid Allah war ma kadina mid salaabaan ku abirta kala de haddaan habargiiro ka dhigno way mucaaradaya habargiir maxaa ku diray maxaa jeclaysiya xoolo xaraan maxaa u diiday inay maxaynu la yaabaynaa daaroodo habargiir inay nacdo oo xukun daaro diido markay ninkii habargiir ay diidayaan reerkan u duceeya waa bil Ramadaan ilaahu habargiir noo toosi ilaahu xukunkooda ilaahu kuwa sida u jecel yihiin daaroodka iyo abjaalku ka dhig
habargidirna inay jeclaato nin iyagii inuu madax noqdo ra'iisul wasaaraha haddaad inuu ogoshay inuu nin hawiye yahay باور كان لقوه الجيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.